waxyaabaha wanaagsan ee xidhiidhka labada qof cimriya waxaa ka mid ah ismoogaysiinta. dad fara badan oo xidhiidh wanaagsan lahaa oo lamaano leh oo saaxiibo leh oo shaqo wadaag leh baa xidhiidhkoodii ku burburay keliya in midkood uu midka kale u fiirsaday imaha yaryar ee uu leeyahay iyo khaladaadka ka dhaca. haddii aad uun u fiirsato wax walo uu sameeyo qofka aad wada nooshihiin ama aad jaalka tihiin ama ay wada shaqayntu idinka dhaxayso, waxaa adkaanaysa inaad u dulqaadato inaad xidhiidh sii wada yeelataan. malahiga waa halka ay daaran tahay mahmaahda tidhaahda caqligaagoo bataa yacni u fiirsashadaada macrifadaaday yaraysaa. waa run, haddii aad imaha qofka uun ku foognaato ama khaladkii yar ee ka dhacaba aad tidhaahdo muxuu waxaasi u dhacay, adigaa qofkaa u dulqaadan kari waayaya ama qofkaasaa eedayntaada u dulqaadan kari waayaya. sidaasna waxaa ku dumaya damal hadh weyn oo aad wada hoos hadhsan jirteen. qof aan wax lagu dhibsada lahayni ma jiro. ismoogaysiin bayse u baahan tahay iyo dulqaad. xasan albasri radiallahu canhu ba waxaa laga sheegaa inuu yidhi ismoogaysiintu waa habdhaqanka dadka ahlulkaramka. imaam axmed ibnu xambalna waxaa laga sheegaa inuu yidhi 9 ka mida habdhaqanka wanaagsani waa ismoogaysiin. ismoogaysiin khaladaadka ka dhaca dadka noloshaada ku weyn sida saygaaga, xaaskaaga, saaxiibadaada, walaalaha iyo dadka ay wada shaqayntu idinka dhaxayso. waa hubaal khalado fara badan way ka dhacayaan. waxyaabo badan oo aad ku dhibsatana waad kala kulmaysaa. laakiin ogsoonow, khaladaadkaa ka dhacaya waxaa ka badan wanaagyada ay leeyihiin iyo weliba dheefta aad ku qabto. gabyaagii carbeedna waatuu lahaa waman daladii turdaa shajaayaahu kulluhaa kafa almaru nublan an tacudda macaayiba idaa anta lam tashrab miraaran cala alghadaa dami'ta wa ayu nnaasi tasfuu mashaariba. waa walaalkiin mubaarak haadi iyo maqaal odaysan.